Hi guys, assalaamu calaykum. Waanigoo Cabdifatax Ibraahim. Xaggaad nagala socotaana waxa weeye Somaltech. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashar muhiima oo ku saabsan maxay ahayday barashada computerka. Waxaan ka soo hadalnay CPU-ga oo noqonaya chip muhiim ah oo ku jira computerka. Maanta waxaan eegi doonaa RAM-ka ama waxa loo yaqaano maxay ahayday Random Access Memory. Sidoo kale waxaa loo magacyo kale leedahay sida main memory, primary memory, system memory ama random access memory. Intaasoo dhan waxa weeye memoryga computerkaaga uu leeyahay ee aad ku soo iibsatid ayaa loo yaqaanaa maxay ahayday random access memory. taas baan maanta eegi doonaa waxay tahay iyo waxa inoo qabanayso. Okay, marka hore waxa weeye waa hardware. Waa sababta aynu ognahay waxaa jirta computerku inuu noqdo software iyo hardware u kala qaybsamo. Marka iyadu waxay ka mid tahay qalabka hardware-ka ee computerkaaga ku jira kuna xidhmaya motherboard-ka oo ah meesha ku xidhmayaan qalabyada computerkaaga oo dhani. Okay, haddaba device-kan hardware-ka wuxuu inoo ogolaanayaa in information-kii ama macluumaadkii lagu kaydiyo, sidoo kalena lagu sameeyo waxa loo yaqaano retrieving, fetching, extracting. Ereyadaasoo dhan waxaa loo isticmaalaa marka meel information laga soo saarayo aad ku kaydsatay ayaa loo isticmaalaa. Marka retrieving macnaheedu waxa weeye information-kii ayaynu ka soo saaranaynaa. Okay, waxaanay ku jirtaa on computer, macnaha computerkaaga gudihiisa ayay ku jirtaa. Sida caadiga RAM-ta waxaa loo associate gareeyaa ama loo tixgeliyaa computerkaaga ku jirta DRAM ama dynamic random access memory waxa loo yaqaano ayaa maxay ahayday computerkaaga ku jirta, taas oo ah maxay ahayday qayb ka mid ah ama tabiska uu leeyahay noocyadu leeyahay random access memorygu ama RAM-tu ka mid ah oo maxay ahayday ku xidhmaysa memory module-ka ama stick ah. Xaggan saad ku arkaysid meesha maxay loogu talagalay ku xidhmaa memoryga ayaa loo yaqaanaa memory module. Sababta loo yiri maxay ahayday information ka ay ku kaydinaysa macnaha si randomly ah ayay macnaha kugu soo kaydinaysa information-kaagii kuna siinaysa macnaha way haddii information haysta access garee. Halkii ay ku samayn lahayd sequential, laba erey baa xaggan ku yaala. Mid waxa weeye ereyga loo yaqaano maxay sequential means waxa weeye waa shay order leh oo macnaha 1 2 3 ama alphabetical APC shay isku xiga. Laakiin memoryga RAM-tu waxay kuu siinaysaa information-kaaga si randomly ah oo maxay ahayday aan order lahayn. Okay, macnaha way ka duwan tahay uu ku leeyahay sida ay ku isticmaalaan hard disk-ga iyo maxay ahayday CD-gu. Qaabka ay information-ka ku siinaya waa qaab order leh, laakiin memorygu qaab randomly ayay ku siinaysaa. Sababtaas ayaa loo yidhi random access memory. Okay, sidoo kale waxaa jirta computerkaaga waxay ka dhigaysaa much faster, macnaha inuu noqdo computerkaaga mid aad u shaqaynaya ayay ka dhigaysaa. Okay, macnaha way ka duwan tahay buu ku leeyahay room-ta. Room-tana waxa weeye waa isaguna waa read only memory baa la dhahaa. Waynu eegi doonaa cashirka kan ku xigay ayaynu ku eegi doonaa waxa uu yahay room-ku ama uu kaga duwan yahay maxay ahayday RAM-ta ama main memory-ga. Okay, RAM-tu waxa weeye waa volatile waxa loo yaqaano memory-ga. Laba shay bay u kala baxaan. Memory-ga computerka kugu jira memory fara badan ama waxyaabaha shayada wax kaydiya ee computerka ku jira dhowr qaab bay u kala baxaan. Qaar loo yaqaano volatile memory iyo qaar loo yaqaano non-volatile memory. Marka iyadu waxay ka mid tahay kuwa volatile memory-ga ah. Taa macnaheedu waxa weeye information-kaaga waxay ku hayn karaysaa ama ay ku save gareyn karaysaa information-kaaga intuu computerkaagu dab leeyahay. Haddii uu computerkaagu dab aanu lahayn oo uu baktiyo, macnaha waxa weeye dhammaan information-kii aad ka shaqaynaysay waqtiga haddii aanad save garaysan, macnaha dhammaan wuu lisgareebaya. Waayo memory-gaas waxaa loo yaqaanaa volatile. Maxay ahayday information-ka waxay hayaan oo keliyaata inta uu computerkaagu shidan yahay ama uu leeyahay dab. Non volatile-ka haddii tusaale ahaan ku darno waxaa ka mid ah hard disk-ga computerkaaga ku jira ayaa loo yaqaana non volatile-ka. Haddii computerkaaga uu baktiyo haddii kaleba information-ka way ku kaydinaysaa. Okay, sababta awgeed information-ka waxaad ogaanaysaa inay RAM-tu ay ku kaydinayso information-kaaga inta uu computerkaagu dab leeyahay ee uu shidan yahay oo keliyaata ayay information-ka maxay ahayday ku kaydiyaan. Xaggan saad ka arkaysid tib buu ku siinayaa ama maxay ahayday uu ku root garaynayaa. Wuxuu kuu sheegayaa tala bixin yar. Dadka isticmaala computerka ee ku cusub waxay ku confuse garoobaan memory-yada kala duwan. Waayo waxaad maqlaysaa in la odhanayo RAM-tu waxbay ku kaydisaa, hard disk-gu waxbay ku kaydisaa. Laakiin
way kala duwantay qaabka ay wax u kala kaydinayaan. ramta waxa weeye waxay ku kaydinaysaa computerkaagu inta uu shidan yahay, sidoo kalena maxay ahaydee hard diskiguna wuxuu ku kaydinayaa informationkaaga haddii computerkaagu shidan yahay iyo haddaanu shidnaynba. macnahaas waxay kuu sheegaysaa oo laba qaab oo ay ku kala duwan yihiin. okay, intaa markaan kaga soo gudubno maxay ahaydee ramtu waxa uu yahay definition kooban. waxaan eegi doonaa tabiska uu ramtu leeyahay. ramtu waxay leeyihiin ama uu leeyahay tabis kala duwan laga soo bilaabo markii ugu horeysay ee la sameeyey ramtii ugu horeysay ama memorygii ugu horeysay la sameeyey ilaa iyo waqti xaadirka hadda joogno waxay leeyihiin noocyo kala duwan. waxaa ka mid ah RIM mid loo yaqaano, waxaa ka mid ah single inline memory module mid loo yaqaano, waxaa ka mid ah SODIMM mid la dhahaa ka mid ah, SOORIM mid la dhahaa ka mid ah. marka dhammaan noocyada kala duwan ay leedahay ramtu waxaynu isku dayi doonaa insha allahu tacaala inaynu eegno kuwa ugu muhiimsan casharadeenna soo socda iyo qaababka maxay ahaydee ay u kala shaqeeyaan. xaggan wuxuu inagu tusay mid ka mid ah dual inline memory module-ka qaabka uu noqonayo ayuu maxay ahaydee xaggan inoogu soo sameeyey. okay lineka ugu dambeeya wuxuu kuu sheegaya maxay ahaydee memorygaagu ama maxay ahaydee ramtaadu inay ku xidhmayso maxay ahaydee motherboardka maxay ahaydee oo ay leedahay slot gaar ah. slotkuna waxa weeye meesha uu ku xidhmayo maxay ahaydee ramtaadu ama qalabyada kale ay ku xidhmayaan baa slot loo yaqaana. waxaynu eegi doonaa ramtu waxay leedahay information fara badan oo kuwa hore aan soo sheegnay ah. computerkaagu markuu bootingka samaynayo ama computerkaagu soo kacayo waxaa ka mid ah qaab ka mid ah ama qayb ka mid ah operating systemkaagu iyo driverskaagu waxaa loo load gareeyaa memoryga si ay ugu saamaxdo CPU-gaagu inuu processing ku sameeyo maxay ahayd soo kicitaankaaga computerka oo si faster ah ama speed up ugu sameeyo. waxaa loo root gareeyaa ama maxay loogu load gareeyaa memorygaaga, waxaanay ka caawisaa computerkaaga inuu soo kicitaanka maxay ahaydee si fiican faster ah ayay ka caawisaa maxay ahaydee CPU-gaaga inuu computerkaaga usoo kiciyo. sidoo kale markuu computerkaagu soo kaco ee booted up la sameeyo ee computerkaagu shaashada ku yimaado, tusaale ahaan oo kale haddii aad doonaysid browserkaaga aad furato ama page aad eegaysid sida tusaale ahaan kale hadda aynu isticmaalayno screen capture-kan hadda aan sameynayo maxay ahaydee browserkan ku jiro waxyaabay saamaxaya inuu maxay ahaydee ii shaqeynayo waxa weeye waa ramta. okay, macnaha sidaas oo kale haddaad doonaysid inaad sameyso ama page aad doonaysid inaad aragto ama document aad furaysid oo aad wax ku akhrisanaysid, shayga kuu saamaxaya maxay ahaydee awood ku siinay inaad akhrisatid macnaha waxa weeye ramta. marka computerkaagu haddii uu rangaraysmayo haddii maxay ahaydee soo kacayaba waxay kuu saamaxaysaa inay kaa caawiso si performance-gu kor kugu qaadmo ramtaadu. haddii aynu soo koobno macnaha waxa weeye computerkaaga markuu soo kacayo ramtu way ka qayb qaadataa. computerkaaga markuu soo kaco macluumaadka aad soo furatid ama dhammaan browserska ama maxay ahaydee programmeska kala duwan ee computerkaaga kugu jira in ay maxay ahaydee soo kacaan oo aad ku shaqaysatid inta aad ku guda jirtid shayga ku saamaxaya waxaa loo yaqaanaa ramta waana memoryga. haddii uu ramtaadu cuslaato ama intii loogu talagalay in ka badan maxay ahaydee ay soo gasho waxaa la sameynayaa ama maxay ahaydee swiping waxa loo yaqaano ama paging file waxa loo yaqaano oo waxaa loo gudbinayaa maxay ahaydee hard diskigii si ay kuu siiso temporary memory. macnaha memorygaaga yaraaday, haddii memorygaagu yaraado waxaa la sameeya waxa loo yaqaano swipingka, hard diskigaagi baa lagu root gareynayaa oo loo gudbinaya informationkaagii. marka waxay ku siinaysaa temporary memory ayay ku siinaysaa sida ramto kale u shaqeynaya, macnaha way iscaawinayaan macnaheedu weeye. inta haddii ka gudbin waxa weeye computer performance-gaaga ayay ka qayb qaadanaysaa. markastoo uu computerkaaga uu leeyahay ram ay sareyso maxay ahaydee ramtaadu ay sareyso computerkaaga, macnaha waxa weeye waa markastoo uu computerkaagu si fiican oo qurux badan uu kugu soo saaro informationkii iyo maxay ahaydee faylalkii aadka u waaweynaa ee GB-yada ahaa si fudud kugu soo saaro ayay noqonaysaa. markastoo ramtaadu maxay ahaydee ay yaraatana computerkaagu wuxuu noqonayaa mid slow ah oo ay aad u yar tahay maxay ahaydee yaraantiisu qaabka uu kugu shaqeynayo. xaggan waxaad ku arkaysaa su-aal buu kugu weydiiyey waxa weeye ramta hadda ugu badan ugu sareysa ee qaadkeeda ugu weyn la isticmaalo waa maxay. waxa weeye waa 128 GB ba hadda ramta ugu badan la isticmaalaa ay tahay. macnaha ta ugu badan macnaha waxaan ka wadaa ramta
ugu qaadka weyn ee hadda jirta waa raamta 128 GB-ga ah ayaa ugu ram weyn. Okay. Waxaan eegi doonaa historyga raamta. Raamta markii ugu horeysay waa 1947kii baa la soo saaray. Raamtii ugu horeysay waxaa lagu isticmaalay cathode ray tube-kii. Caan saas maysi ahayn. Waxaa ku xigtay laakiin ta caanka ah ee core loo yaqaano maxaa heday memory ama magnetic core memory-ga. Waxaa la aasaasay 1947kii iyadana waxaa sinka Frederick la dhaho. Waxay maxaa heday ka koobnayd metal ama maxaa heday bir iyo loo sameeyay nooca fargalka oo kale la isku xidhay iyo xadhko wires lagu sii xidhay. Marka noocaasi ka samaysnayd marka ringi kastaaba wuxuu haynayay hal bit oo information ah oo maxaa heday lagu kaydinayay markii loo baahdana laga soo akhrinayay. Marka waxa la soo gaaray raamta hadda aynu isticmaalno ee loo yaqaano solid state-ka ama DRAM-ta loo yaqaano oo la aasaasay maxaa heday 1800 waxa la 1968kii oo la soo saaray 1970kii shirkadda Intel ay soo saartay waxaana aasaasay ninka loo yaqaano Robert. marka cashirkeena ku saabsanaa maanta introduction-ka raamta ama macnaha raamta waxay tahay waxay qabato xagaas binu weegay marka casharo kun lamid ah sameynaa fadlan waxaad ka codsanay nagu taageertid inaad maxaa heday hadduu soo gaaro videogeygan aad maxaa heday samaysid maxaa heday subscribe channelkeena sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada aad iyo aad baad mahadsantihiin.